waxaa maanta si rasmi ah wadanka Cameroon uga furmay koobka qaramada Afrika. koobkan oo labadii sano mar la qabto ayaa sanad kadib u dhac ku yimid taasoo sabab u ahayd xanuunka coronavirus-ka. koobkan ay ka qayb galayeen 24 wadan kadib sanadkii 2017 oo la kordhiyay taasoo markii hore ahayd 16 wadan ay ka qayb gali jireen koobka qaramada Afrika. hadda waxaa khadka si toos ah ugu jira Cabdirashiid Maxamed oo ku sugan wadanka Cameroon gaar ahaan caasimada Yaoundé. Cabdirashiid ku soo dhaw telefishinka MMTV markaa ugu horeysa. walaali waan dhawahay aad iyo aad u mahadsan tahay aad iyo aad ugu mahadsan tahay barnaamijkan koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda Afrika ee ka furmaya Cameroon gaar ahaan caasimadeeda Yaoundé oo hadda xaadir aan ku ahay waa dhawahay walaal. Cabdirashiid baa nooga warbixi sida wadanka Cameroon ay ugu diyaar garowday koobkan qaramada Afrika iyo waliba sidoo hadda u socdo. hadda daqiiqado 5 daqiiqo dhan ayay socotaa ciyaartu la daahfuray oo xafladii ay soo idlaatay furitaankii oo qayb ka ahaa madaxweynaha dalka Cameroon Paul Biya. diyaar garowga runtii aad iyo aad ayuu sareeyay maalmahana lagaga dareemayay wadankan Cameroon labadii maalin ee ugu dambeysay iyo maanta sidoo kale aad iyo aad ay ugu diyaar garoobeen. Cabdirashiid warbixin kooban naga sii taariikhda koobka Afrika xilligii la bilaabay sidoo hadda walaal aad baad u mahadsan tahay runtii koobka qaramada qaaradda Afrika laga soo bilaabo waxaa si rasmi ah loo soo bilaabay 1957 sanadkii labadii sanaba hal mar ayaa la qabtaa. sanadkani waxaa ka qayb galaya 24 kooxood oo xul oo wadamada Afrika ka socda. runtii waxaana host gareynaya ama marti gelinaya wadankan aad ka caan ku ah kubadda cagta ee Cameroon marka loo fiiriyo koobkan qaaradda Afrika kaalinta labaad kaga soo jirto oo kaalinta koowaad ee Egypt ay tahay. sanad labadii sanaba hal mar ayaa la qabtaa marka run ahaantii ku guuleysashada koobkani laga soo bilaabo 1957 waxa uu guuleysi badnaa oo qaaday wadanka Egypt isagoo oo ku guuleystay 7 jeer halka ay ku soo xigto kaalinta labaadna ay tahay Cameroon ay ku guuleysatay 5 jeer kaalinta saddexaadna ay ku soo jirto wadanka Ghana oo ah 4 jeer halka saddexaadna ay tahay ama afraad aan dhahay Nigeria oo 3 jeer ah iyo Algeria koobkan difaacanayso sanadkii ama markii ugu dambeysay oo la qabtay 2019 ku guuleysatay oo iyadana haddana qayb ka ah. marka sidaas ayay iskugu xigaan xulalkii ku soo guuleystay laga soo bilaabo 1957 iyo 2019 ugu dambeysay Algeria ay ku guuleysatay walaal. Cabdirashiid aad u mahadsan tahay sidoo qorshe u ahaa koobkan oo la qorshay inuu qorsan waxay ahayd bishii June 2011 laakiin se dib u dhacay xanuunka coronavirus-ka awgi hadda xaaladda coronavirus-ka iyo wadanka Cameroon sidee buu ay isku saameeyeen. runtii aad baad u mahadsan tahay weli xaaladda COVID-19 waa mid lala tacaalayo wadankan Cameroon walow uusan ugu badnayn laakiin weli kiisaskiisu way jiraan oo isbitaalada markaad eegto nambaro fara badan ayay soo saarayaan oo kiiska coronavirus ah laakiin hadda markii loo eego koobkan kubadda cagta ee marti gelinayso Cameroon waxay ku xirtay shuruudo ah ay ku yareynayso dadka shuruudahaas oo ay ka mid yihiin qofka inuu yahay negative warqad cadeynayso inuu wato isla COVID-19 inuu yahay negative inuu ku yahay iyo qodobka labaad oo ah inuu vaccine-kii uu qaatay hal dose oo kale inuu soo qaato certificate uu ka wato. sidaas ayaa xoogaa loo kala yareeyay ama loo xadiday oo lagu maareynaya dadkii ka soo qayb galayay koobkan kubadda cagta ee Afrika ka dhacaya Cameroon. wuxuu soconayaa ilaa bilowga bisha February halka ayuu ku eg yahay bisha February bilowgeeda halaas ayuu soconayaa. muddo bil ah u socon doona walaal. sida wada ogsoonahay Soomaalidu maxaa sabab u ah inay ku hadhaan gruubyada. runtii aad u mahadsan tahay Soomaaliya caqabado badan ayaa ka haysta xagga kubadda cagta run ahaantii way jiraan ciyaartoy aad maxaa la yiraahdaa sheeg qayb ka ah horyaalka Soomaaliya
laakiin waxaad moodaa xoogaa diyaar garowgooda iyo tababarkooda iyo habka ay laiskugu aadinayo xulka kubadda cagta qaranka inay xoogaa uu gaabis uu ka jiro oo la moodo in dad u qalmay inay kasoo haraan ama dad aanan u qalmayn inay soo raacaan marka xoogaa problems iyo caqabado badan challenges badan ayay wajahayaan dalka Soomaaliya waxaad moodaa mar walba inay wareega aan isreereebka ay kusoo haraan laakiin in badan waa lagu dadaalaa oo ciyaartoy fara badan way soo baxayaan waan rajaynaynaa insha Allah mustaqbalka inay soo gaaraan insha Allah dhinaca kale Cabdirashiid waxa la sheegay in garoonkii ugu weynaaye uu ka dhici lahaa koobku ee Olympic Stadium wali uu ku socdo dhisme hadda xaaladiisu waa sidee hadda aan kula kugu warbixintaani aan ku siinayo runtii ciyaartu way socotaa waxayna ka socotaa Olympic Stadium ayaa lagu furay matchkii ugu horeeyay ee u dhaxeeya Cameroon iyo Burkina Faso waxaa lagu furay oo hadda lagu ciyaarayaa Olympic Stadium oo qaadkiisu uu yahay 60,000 xitaa finalaha waxaa lagu wadaa in lagu qabto isla garoonkani Olympic Stadium runtii waxaa jiro garoomo badan oo lagu ciyaari doono hadduu alla idmo insha Allah 6 garoon ay yihiin waxaa ka mid ah 6daas garoonkan koowaad oo hadda maanta lagu furay ciyaarta koobka qaramada qaaradda Afrika ee martigelinaysa Cameroon waxaa wada ciyaaraya marka Cameroon iyo Burkina Faso waxayna ku ciyaarayaan garoonkan Olympic Stadium oo 60,000 oo qofood ayuu qaadayaa wuxuuna ku yaalaa isla caasimadda Cameroon iyo Yaoundé sidoo kale waxaa lagu ciyaari doonaa oo kamid ah qaar kamid ah kulamada Stade Ahmadou Haji Stadium waxaa lagu ciyaari doonaa mid lagu magacaabo Ahmadou Haji Stadium oo qaado 42,500 wuxuuna ku yaalaa Douala sidoo kale waxaa kamid ah Jomaba Stadium oo 50,000 oo qofood qaado oo ku yaala Garowe meel la yiraahdo marka way badin ilaa 6 garoon ayaa lagu ciyaari doonaa waxaana lagu furay hadda garoonkaas aad tilmaamtay oo aad magacawday oo dhismihiisu soo dhamaaday oo aad loo habeeyay loo dayactiray Olympic Stadium oo qaadkiisu yahay 60,000 halka lagu wadana finalkana sidoo kale in halka lagu qabto insha Allah Douala sidoo kale waxaa kamid ah Jomaba Stadium oo 50,000 oo qofood qaado oo ku yaala Garowe meel la yiraahdo marka way badin ilaa 6 garoon ayaa lagu ciyaari doonaa waxaana lagu furay hadda garoonkaas aad tilmaamtay oo aad magacawday oo dhismihiisu soo dhamaaday oo aad loo habeeyay loo dayactiray Olympic Stadium oo qaadkiisu yahay 60,000 halka lagu wadana finalkana sidoo kale in halka lagu qabto insha Allah lahan inta ku baxay Cabdirashiid uu diyaar garowgan koobka qaramada Afrika wallahi waa dareemi kartaa xaalado culus iyo waqti culus ayaa muddadan dambe lagu jiray oo COVID-19 kii safmareenka ahaa ee adduunka ka dhacay ayaa moodaa in xoogaa dhaqaale darri iyo dhibaatooyin iyo caqabado badan soo wajahayay dalka Cameroon si ay ugu diyaar garoobaan koobkan kubadda cagta qaaradda Afrika marka ugu dambeyn way suurta gashay in ay u diyaar garoobaan ay qabtaan ugu dambeyn way suurta gashay inay sameeyaan dhaqaale ahaan hadda ma xadidi karo inta ku kacday laakiin ugu dambeyn way ku guuleysteen inay martigeliyaan koobkan wadanka qaabila koobka qaramada Afrika wadankaasi maxay uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay in muhiimad aad ay u leedahay in wadankii uu dhaqaalana uu ka helo sidoo kalena magac iyo maamuusna uu ka helo oo lagu qabtay koobkan tartanka aad ku adag ee ka dhaxeeya wadamada qaaradaha Afrika waxay uga dhigan tahay marka inay u tahay magac iyo maamuus iyo maalba inay ka helayaan marka si guud u eegto xulkeebaad isleedahay sanadkan waa uu qaadi doonaa koobka qaramada Afrika Cabdirashiid runtii saadaalintu aad bay u adag tahay oo kubadda cagtana waad garanaysaa waa mid cad iyo madow waa iska nasiib ah laakiin 24 xul ee hadda xaadirka ah ee kasoo qayb galaya koobkani sanadan ka dhacaya Cameroon koobkan qaramada qaaradda Afrika aad bay u wada adag yihiin walow ay si kala adag yihiin laakiin waxaa laga filayaa in kooxo ama xulal aanan la filanaynin inay soo baxaan ay qaadaan oo suurtagal sida hore u soo dhacdayba waa macquul gal laakiin sida awoodaha marka la fiiriyo kooxaha ugu awoodka badan ama xulalka ugu awoodka badan waxaa kamid ah Cameroon iyo Egypt iyo waxaa kamid ah sidoo kale iyo Ghana iyo Nigeria laakiin waxaan isleeyahay waxaa inta badan awoodda la saaraya loo saadaalinayaa maadaama ay martigelinaysana Cameroon ee kubadda cagta aad ay ugu wanaagsan tahay inay Cameroon ay ku guuleysan doonto
kooxda ama xulka kusoo xigana liisleeyahayna tiimka kusoo xiga